assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi. wasaaradda ganacsiga ee dalka maraykanku waxay sheegtay in shirkado badan oo laga leeyahay dalka shiinuhu ay haatan si toosa u joojiyeen wada shaqayntii ay la yeelan jireen shirkadaha dalka ruushka. arrinta ayay ku sheegtay wasaaradda maraykanka inay u sameeyeen shirkadaha shiinayska ahi cabsi ay ka qabaan inay saameeyaan cunaqabataynihii kala duwanaa ee dowladda maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedkaa saarayeen dalka ruushka. ma jirto hal shirkaday si rasmiya u sheegtay wasaaradda ganacsiga ee dalka maraykanku inay iyadu ku dhawaaqday inay joojiso wada shaqayntii kala dhexaysay shirkadaha ku yaala ruushka. waxayse sheegtay shirkadahaasu inay weli diyaar u yihiin inay la sii shaqeeyaan shirkadaha ka howlgala gudaha dalka ruushka, balse ay isticmaalayaan cid saddexaad oo badeecadaha u kala gudbisa, lacagaha isticmaalayaana ay noqdaan kuwo kale oo aan ahayn doolarka maraykanka. sheegashooyinka noocan oo kale ayaa waxay ahaayeen kuwo ay 2 sannadood u dambeysay sheeganaysay dowladda maraykanku, waxaana dadyowga adduunka kaga iibisaa inay tahay dowladda ugu awoodda badan adduunka, cunaqabataynaheeduna ay yihiin kuwo si buuxda u shaqeeya.